wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya ayaa bilowday daadgureynta xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka qayb gashay gudashada acmaasha xajka kuwaas oo maanta lagu wada in qaarkood ay soo gaaraan dalka. warkan waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyaheena Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus. xujaydii ka timid gudaha dalka Soomaaliya oo tiradoodu gaaraysay 11,500 xujay ayaa si habsami leh u gutay dhammaan howlihii arkaanta xajka ee diiniga. sidaasi waxaa shaaca ka qaaday gudoomiyaha guddiga bixisada xujayda Soomaaliyeed ahna la taliyaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif. haddaba gudoomiyaha guddiga bixisada xujayda Soomaaliyeed xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta guddiga bixisada xujayda Soomaaliyeed ee magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama ayaa waxa kala uu faahfaahin kooban ka bixiyay guud ahaan qaabkii uu ku dhamaaday howlihii xajka ee xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan 2019. waxaan ku wargelinaynaa dhammaan xujayda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed in noo soo dhamaaday arrimihii xajku si wanaagsan ay ku soo dhamaadeen iyadoo oo aan xaqiijinay 11,500 xaaji oo wadan ka soo xajiday in xaaji walba uu xajkiisa u gutay sidii loogu talagalay oo ay mareen intii laga rabay qof xaaji oo islaamku intuu faray inay mareen. ma jiro hal xaaji oo aan xajkiisa soo gudanin marka laga reebo xaajiyad xajka ka hor dhimatay iyo xaajiyad kadib dhimato oo khaas ay yihiin aan u tacsiin ahalkii ay ka tageen. laakiin xujayda Soomaaliyeed meel ka soo joogaan dadka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa xujaydu inay xajkii si wanaagsan oo habsami socod leh oo ku soo dhamaaday run ahaantiina taas ay tahay guul weyn. haddaba gudoomiyaha guddiga bixisada xujayda Soomaaliyeed ahna la taliyaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo intii uu socday shirkaasi jaraa'id muuqaalkiisa laga dareemayay farxad iyo reenreen oo ka tarjumaysa guulihii laga gaaray howlihii xajka ee xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan ayaa sheegay in haatan ay u gudbeen meelmarinta qaybtii labaad oo ah dib u celinta xujayda Soomaaliyeed iyadoo uu cadeeyay in maanta ay si rasmi ah u bilaabatay duulimaadadii xujayda Soomaaliyeed dib ugu celinayeen gudaha dalka Soomaaliya isagoo ka codsaday ummadda Soomaaliyeed inay si heer sare ugu soo dhaweeyaan xujaydaasi garoonadii marka hore ay ka soo duuleen ee gudaha dalka Soomaaliya. waxaa bilaamaya qaybtii labaad oo bilaamayna soo celinta xujayda Soomaaliyeed. waxaa bilaamaya bari laga bilaabo inay soo kacaan xujay Soomaaliyeed oo ka soo baxaysa dhulka barakeysan isla markaana ku soo wajahan jamhuuriyadda Soomaaliya. sidaas daraadeed waxaan ku wargelinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay dadka xujayda la soo dhaweeyo garoomada ay ka soo degayaan guryaha ay tagayaan meel kasta in loo fududeeyo oo xujayda la qaabilo si wanaagsan lagu qaabilo. xujaydu waxay ka yimaadeen xajkii way ducaysan yihiin dambigoodii Ilaahay soo dhaafay in laga ducaysto oo laga ilaaliyo xaajiga Soomaaliyeed markii uu soo dego wadanka in sida ugu horeysa la qaabilo waliba in laga ducaysto xujayda oo guryaha ay galayaan iyo meelaha imanayaan barako ayaa la socota. taasna waxa weeyaan waan in isqaabiladaas wanaagsan xujayda loo sameeyo. haddaba ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga bixisada xujayda Soomaaliyeed ahna la taliyaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ayaa ku tilmaamay inaysan waxba ka jirin hadal oo ay baahiyeen warbaahinta qaarkood oo faafiyay in dhowr boqol xujaydii Soomaaliyeed ee sanadkan aysan gudan xajkooda isagoo ka hadlayay umuurtaasina waxaa hadaladiisii ka mid ahaa. markii arrintii aan raadinay oo qoladii arrinta dirtay aan la hadalina iyaga laftooda waxay yiraahdeen anagu sa uma aanan jeedin bimaana warka maanta la sii daayay waxay maalintii koobaad maalin labaad baa ka dambeysay maalin saddexaad baa ka dambeysay xajku arrimihiisu way isdaba socdaan. marka tafsiiro kale oo anagu waxaan ula jeednay acmaasha xajka inaysan dawaafkii iyo sacyiga aysan samayn bay yiraahdeen. warkaasi marka waa war aan waxba ka jirin weeyaan oo aan xaqiijinay anaga 100% shirkadaha ayaa xaqiijiyay oo nala shaqeeya oo 12 shirkadooda wasaaradda ayaa xaqiijisay Sacuudiga laftiisa oo meesha laga xajinaya ayaa goobjoogaha waxaan xaqiijinay marka in qof walba xaaji uu xajkiisii uu soo gutay waayo gawaari waxaan noo kareysnayd qof walba xaaji inuu leeyahay kursi inuu helo 230
iyo 4 gaari oo kuwa waaweyna oo kiiba qaado 49 xaaji ayaa noo kareysneed geeyntooda waan xaqiijinay in dhammaan xujada la wada geeyay maalihii la rabay in la geeyo haddaba warbaahinta qaranka Soomaaliya ee SNTV waxa ay guud ahaan leedahay xujadii Soomaaliyeed ee sanadkan 2019 xaj mabruuq wasaayan mashkuur insha Allah علي جامع علمي على كوس وربا عند قرقة صوماليا SNTV سعودي أرابيا.